waxaynu ku bilaabaynaa barnaamijkayaga wararka dhanka colaadda Iiraan iyo Israa'iil iyada oo labada dhinacba ay ku jiraan xaalad dagaal balse ay jirto xabajoojin lagu soo afjaray dagaalkii socday muddada 12 maalmood ah ayaa waxaa isa soo taraya hadallada xanafta leh ee dhiilada xambaarsan ee labada dhinac ay isku jeedinayaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku guul daraystay inuu gaaro guushii uu ballan qaaday ee ka dhanka ahayd marinka Gaza iyo sidoo kale inuu meesha ka saaro barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. Araghchi ayaa fariin uu ku qoray baraha bulshada waxa uu ku xusay in Netanyahu uu ballan qaaday guul Gaza laga keeno balse natiijadu ay noqotay jahwareer military warqado qabasho caalami ah oo dambi dagaal ah iyo 200,000 oo dagaalyahano cusub ah oo Xamaas ay qoratay. wasiirka reer Iiraan waxa uu sidoo kale taabtay weerarada Israa'iil ay ku qaaday dalkiisa bishii Juun ee la soo dhaafay isagoo tilmaamay in Netanyahu uusan gaarin wax guul ah oo uu ku doonayay gudaha Iiraan laakiin taasi beddelkeeda Iiraan ay burburisay xarumo sir ah oo Israa'iil ay leedahay isagoo intaasi ku daray in xukuumadda Netanyahu wali ay qarinayso xogta khasaaraha soo gaaray ee ka soo gaaray dagaalkii socday muddada 12 maalmood ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi waxa uu sidoo kale sheegay in Netanyahu uu ku riyoonayay in uu kala dirayo barnaamijka nukliyeerka Iiraan oo jiray in ka badan muddo 40 sano ah. Araghchi oo hadalkiisa sii wataya waxa uu yiri natiijadu waxa ay tahay in mid kasta oo ka mid ah 12kii aqoon-yahan ee Iiraan u dhashay ee uu dilay in ay tababareen in ka badan 100 arday oo karti leh kuwaasi oo muujin doona waxa Netanyahu qaban karaan. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa sheegay in siyaasadaha Mareykanka ee Iiraan ay ku saleysan yihiin amaro ka yimaada dhanka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. waa tahay markana Washington madaxweyne Donald Trump ayaa muujiyay niyad jab uu ka qabo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin isagoo yiri aad baan uga niyad jabay madaxweyne Putin. Trump oo la hadlayay saxafiyiinta ayaa sheegay in uu markii hore u haystay Putin waa sida uu hadalka u dhigay nin ballanqaadkiisa oofiya isla markaana si cajiib ah ula hadla dadka maalintii laakiin habeenkii dadka duqeeya taasina aysan ahayn mid isaga farxad gelinaysa. hadallada madaxweynaha Mareykanka ee ku wajahan dhigiisa Ruushka ayaa si weyn isu bedelay bilooyinkii u dambeeyay iyaga oo kasoo gudbay cod degan oo taxadar leh una gudbay dhaleecayn dadweyne iyo mid toos ah. bishii Abriil Trump waxa uu baaq gaar ah u jeediyay Putin kadib weerar xoog leh oo Ruushka uu ku qaaday magaalada Kiev ee dalka Ukraine isagoo yiri Vladimir jooji 5,000 oo askari ayaa toddobaad kasta dhimanaya aan heshiiska nabadda dhamayno. taasi waxay ahayd markii ugu horeysay ee si toos ah u muujiyo Trump inuu ka soo horjeedo sii socoshada dagaalka Ruushka uu ku hayo Ukraine. isbeddelkan weyn ee mowqifka Trump ka yimid ayaa muujinaya cadaadiska sii kordhaya ee kaga imaanaya gudaha iyo caalamkaba si uu u adkeeyo mowqifka uu ka qabo dagaalka u dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine ee muddada socday. waxaa la filayaa in Trump uu maanta ku dhawaaqo qorshe cusub oo lagu hubeynayo Ukraine oo ay ku jiraan hub weerar lagu geysan karo Ruushka oo kaasi oo la siinayo Ukraine sida ay warisay shabakadda Axios oo soo xigatay 2 ilo wareed. waa tahay markana aynu eegno dhanka Suuriya. wasaaradda arrimaha gudaha ee Suuriya ayaa waxay sheegtay in iska horimaadyadii u dhaxeeyay maleeshiyaadka hubeysan ee qowmiyadaha Druuska iyo Badawiyiinta ee ka dhacay gobolka Koonfureed ee Suweyda inay sababeen dhimashada in ka badan 30 qof iyo dhaawaca ku dhawaad 100 qof oo kale. wasaaraddu waxay intaasi ku dartay in ciidamada ammaanka ay si toos ah u faragelin doonaan si loo joojiyo iska horimaadyada loona soo qabto dadka mas'uulka ka ah dhacdooyinka lana geeyo maxkamadaha iyagoo adkeynaya muhiimadda wadahadal dhammaystiran oo wax ka qabta sababaha xiisadan dhaliyay. wasiirka arrimaha gudaha ee Suuriya Anas Kataab ayaa sheegay in maqnaashiyaha hay'adaha dawladda gaar ahaan militariga iyo amniga ay tahay sababta ugu weyn ee xiisadaha ka taagan gobolka Suweyda. waxaana uu yiri xalka kaliya waa in la sugo amniga la howlgeliyo hay'adaha dawladda si loo xaliyo nabadda bulshada dhexdeeda. wasaaradda difaaca ee Suuriya ayaa waxay xaqiijisay inay la shaqeynayso wasaaradda arrimaha gudaha si ay uga daadgurayaan cutubyo gaar ah oo military aagaasi isla markaana ay u furaan wadooyin ammaan ah oo dadka rayidka ah ay ku baxsadaan ee wanaag dhex galaan ee kooxaha dagaalamaya si degdeg ah oo go'aan leh isla markaana la joojiyo xiisada u dhaxaysa labada qowmiyadood. wakaalada wararka ee dawladda Suuriya ee Sana ayaa sheegtay in ciidamada ammaanka la geeyay xadka maamulka ee kala qaybiya gobolada Darca iyo Suweyda si ay uga jawaabaan xaaladda
xaaladda amni ee soo korortay. taliyaha amniga gudaha Naysar al-Hariri ayaa sheegay in xiisadu ay ka bilaabatay dhacal lagu sameeyay wadada u dhaxaysa Dimashq iyo Suwayda, taasi oo ka dambeysay falal afduub ah oo ay sameeyeen maleeshiyaadka labada qowmiyadood ee dirirtu ay ka dhaxayso. bishaaro ma doonaysaa in waalidkaaga oo dhintay ama geeriyooday ama xanuunsan oo sariiryaal ah in lagaaga cumreeyo inta lagu guda jiro bilaha xurmada leh? wax ka yar $300 ayaa lagaaga cumreynayaa waalidkaaga, waxaana fursaddan qaaliga ku siinaysaa shirkadda xajka iyo cumrada ee Taqwa oo kuu samaysay qiimo dhimistan ballaaran. waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday, waxaana shaqadan qabanaya culimo aqoon u leh. haddaba si aad uga faa'iidaysato fursaddan qaaliga ah, la soo xiriir shirkadda xajka iyo cumrada ee Taqwa At-Taqwa Xajan Cumra adigoo kala soo xiriiraya telefoonada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda. hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka lagu barto waxaa ka mid ah quraanka kariimka, higaada, axaadiista, ducooyinka, tarbiyadda asaasiga ah ee ilmaha, tafsiirka quraanka iyo qaybaha kale ee culumta shareecada. waxaadna helaysaa 24 saacba 5 maalmood oo ka mid ah isbuuca. dugsigu waxa uu bixinayaa caddayn waxbarasho oo aqoonsi leh ama shahaado. faahfaahin dheeriya la xiriir WhatsApp-ka +252 633 145 153. Simodi oo ah suuqa ugu weyn ee dahabka ee bariga Afrika waxa uu macaamiishiisa ugu talagalay fursad cajiib ah oo marla araga. haddii aad dahab ka soo iibsato Simodi iyo haddii aad iska iibinayso labadaba, Simodi waxay ku siinaysaa fursad qaali ah oo aad ku guulaysan karto dahab kale, waana fursad soconaysa bishan iyo bisha soo socota. cajiib! Simodi ka iibso dahab ama iska iibi oo hel dahab kale oo aad ku guulaysanayso fursaddan. guulaystayaashu waxay noqon doonaan 6 qof ee ugu horeeya, waxaana uu xarumo ku leeyahay Dubai iyo Hargeysa. faahfaahin dheeri ah waxa aad kala xiriirtaa WhatsApp-yada Hargeysa iyo Dubai ee aad ku aragto shaashadda. haddii aad ubadkaaga aqoon sare la jeclaatid halkaad aadi lahayd iyo kana waa American International High School ee ilmaha haatan u geyso oo aqoonta Kamal. American International High School farciisa Nairobi waxa uu kugu bishaaraynayaa inuu ku hayo waxbarasho heer caalami ah oo aad qaadanayso shahaado la aqoonsan yahay, isla markaana casharrada lagu bixinayo nidaamka waxbarashada Mareykanka. haddii aad ka soo guurtay qurbaha ama aad la doonayso waxbarasho tayo wanaagsan carruurtaada, American International High School waxa uu ku diyaariyey waxbarashada dugsiga sare. waxa uuna iskuulkan wada shaqayn la leeyahay hay'adaha waxbarashada Mareykanka. iskuulku waxa uu ku yaalaa xaafadda Westland ee magaalada Nairobi. wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada iyo shashada kaaga muuqda.